qaybtii koowaad ciwaankii ahaa hamrugoon. Habeen kastoo mugdi badan waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan, culaysna waxaa ka dambeeya waa fudayd. waxaad dhahdaa yaa allah, dhibaatadu si walba u weyn tahay, waxaad haysataa alla weyne kaa saaraya dhibaatadaas. gacmaha u taago oo allow dhawaaq. ma jirto awood ka saraysa ducada, sababtoo ah waxaa xiriir la samaynaysaa midka adduunka iyo orka iska leh, midka u bedeli kara dhibaatooyinkaada oo dhan xal, xanuunadaada oo dhan u bedeli kara caafimaad, ilintaada oo dhan u bedeli kara dhoola caddayn, riyooyinkaada oo dhan ka dhigi kara suurtagal. waa kuma midka dhibaataysan marka uu gacanta u taagto ka fayda dhibaatada. waa kuma midka ku siin kara farxad iyo deganaansho iyo raaxo aad ka dareentid qalbiga. waa kuwa midka ay gacmihiisa ku jiraan adduunkan oo dhan oo cidna aysan ka saaraynin, wax walba uu rabana ay ka dhacayaan adduunkan. waa allah. allah wuu kuu jeedaa, allah wuu ku maqlaa, allah qalbigaaga waxa ku jiro ayuu ogyahay. haddii ay murugada kugu siyaado, fiiri samada iyo samada sida ay weyn tahay. allah samadaas abuuray in ay xaaladaadu ka qarsoonayn. kadibna dhoola caddee, naxariista alle ah ka quusan inta aad nooshahay. haddii uu adduunka ciriiri uu kugu noqdo oo aad dareentid culays sida in adduunka oo dhan la saaray dushaada oo kale, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad dareentid murugo, cabsi iyo walwal iyo walbahaar oo aad weydid waddo aad uga baxdid murugtaas, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu imtixaano jirro oo aadan seexanaynin ilaa adiga oo xanuunsan, subaxdii markaad soo kacdid la kacayo xanuun, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii wax kasta ay kaa qaldamaan oo aad qorshe walba aad samayso kuu shaqayn waayo, waddada aad ku socoto ay kula noqoto buur aad korayso, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagu leeyahay deen oo maalin walba aad ka fikirayso sida aad u dhiibi lahayd deentaas, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagu dulmiyo oo lagugu xadgudbo, maalin walba lagu dhibaateynayo oo been lagaa sheegayo laguna xamanayo, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad si fudud u weydo waxa aad muddo badan soo tabcaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu tuhmo waxa aadan geysan, dadka dhanna ay isugu markhaati furaan in aad samaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad weydid hooyada, caruurtaada, xaaskaaga, gurigaada, shaqadaada iyo waxbarashadaada, waxaad dhahdaa yaa allah. allah wuxuu leeyahay addoommadeyda waan u dhowahay, waana ka aqbalaa ducada markay wax i weydiistaan. mar walba oo aad dhib dareento, gacmahaada kor u taago oo waxaad dhahdaa oona ku celcelisaa, ilaahayow aniga waxa i taatay dhib, adigana waxaad tahay mid naxariis badan. ilaahayow xaaladda aan ku suganahay waad u jeedaa, adiga ayaa iga bixin kara xaaladdan. ilaahayow iga bixi oo qalbigayga ii qabooji. ilaahow waxaan dulmiyey nafteyda, haddii aadan ii dembi dhaafin oo aadan ii naxariisan, waxaan ahaanayaa kuwa khasaaray. ilaahayow ka yeel indhahayga kuwa arka waxa wanaagsan, carabkaygana ka dhig mid khayr ku hadla, gacanteydana ka dhig mid dadka u gargaarta, qalbigaygana ka dhig mid cafis badan, nafteydana ka dhig mid ku mashquusha wax faa'iido badan. ilaahayow ii rumey riyadeyda, ii iftiimi mustaqbalkayga, i gaarsii guul, ii barakee waqtigayga. ilaahayow isii sabar iyo adkaysi marka wixii aan qorshaystay ay u shaqay waayaan sidii aan u rabay. ilaahayow adiga ayaa garanaya wixii ii wanaagsan, igu caawi in aan aqbalo qadarta iyo wixii aad ii qortay. ilaahayow waxa i taabtay dhib, adigana waxaa tahay rabbi naxariista. nabi ayub waxa alla uu siiyey 14 caruur, xaas fiican iyo xoolo badan. waxa uu lahaa dad badan oona u adeeya kana shaqeeya hantidiisa. waxa kale oo uu lahaa beero waaweyn oo ay ka baxaan qudaarta kala duwan, waxaana u dheeraa intaas nebinimo iyo cibaado badan. waa nolol raaxo leh oo qof kasta hamiyo inuu ku noolaado. muddo 70 sano ah ayuu ku noolaa nimco iyo barwaaqo. nabi ayub xaaladiisa hal mar ayay isbedeshay, waxaana ku dhacay xanuun oo la kici waayey, kadibna xoolihii iyo shaqaalihii ayaa ka baxay. sidoo kale waxaa ka geeriyooday dhammaan carruurtii uu dhalay oo mid mid u dhintay. waxaa ehelkiisii ka soo haray xaaskiisa oo ahayd xaas fiican, waxayna noqotay gabar faqiirad ah. waxa ayna dantii ku kaliftay in ay shaqo tagto oo u qidmayso guryaha si ay u hesho nolol maalmeedkeeda. nabi ayub wuu sabray, wuxuuna ahaa qof aan ka caajisin dikriga alle. nabi ayub jirkiisii ayaa qayb ka mid ah marba mar go'aysay. dadkii oo dhan way ka tageen markii laga reebo xaaskiisii oo ayada ku mashquushay daryeelkiisa iyo cunto siintiisa.
Maalin maalmaha ka mid ah ayay xaaskiisii ku dhahday Nabi Ayuub, maxaad Alle u weydiisan weyday inuu dhibta kaa qaado? Nabi Ayuub waxa uu dhahay, ma xasuusataa inta sano ee caafimaad qabay xoolana aa haystay? Xaaskiisii waxay dhahday, haa, 70 sano ayaad caafimaad qabtay kuna noolayd nolol barwaaqo leh. Alla weyne wuxuu ii barwaaqeeyey 70 sano ee miyaanan dhibta u samraynin 70 sano oo kale. Nabi Ayuub waxa uu samray muddo dhan 18 sano oo dhibtu marba mar ka dambeysay ee kusii kordhaysay. Ugu dambeyntii xaaskiisii waxay u diideen shaqadii, dadkiina waxay ka soo xirteen albaabadii. Kadib markii ay aragtay in aysan haysan wax cunto ah, ayay iska jartay timaheedii wayna iib geysay. Markaas ayay ku soo gaday cunto si ay ninkeeda u siiso. Cuntadii ayay u keentay Nabi Ayuub. Markaas ayuu weydiiyey xaaskiisii meesha ay ka keentay, sababta oo ah waxa uu ogaa in shaqadii loo diiday. Xaaskiisii ma rabin in ay u sheegto, laakiin Nabi Ayuub waa uu ku adkeeyey wuuna ku celceliyey. Kadibna way u sheegtay in ay gaday timaheedii. Nabi Ayuub markii uu arkay in dhibaatadii meel aad u xun ay gaartay, ayuu samada fiiriyey oo Alle u dhawaaqay, wuxuuna ku yidhi, Allow, dhib ayaa taabtay, adiguna waxaa tahay Rabbi naxariis badan. Kii uu dhibaatadiisii u sheegtay Allah ayaa fajirkii u yimid, Allahna wuu u caafiyey. Farxad ayuu ugu bedelay. Waxa uu Alle qadaray in xaaskiisii da' yaraato oo dhalinyaro ku noqdaan labadooda. Sidoo kale Alle wuxuu u soo celiyey carruurtii, beertii iyo shaqaalihii dhammaantood. Miyay ku soo gaartay dhibaatadaas oo 18 sano soo gaartay Nabi Ayuub oo dhibaato ah? Miyaad weyday dhammaan carruurtaada? Miyaad weyday dhammaan hantidaada? Miyaad weyday dhammaan caafimaadkaaga? miyay kaa tagin dadka oo dhan? Maxaad la murugoonaysaa marka? Noloshaada miyaad nacday? Dad badan ayaa jira oo xanuunsan oo jiifa isbitaalada oo ay ku xiran yihiin oksijiinada nafta. Wax kasta ay ku bixinayaan si ay u sii noolaadaan. Lacag badan oo aadan haysan miyaad ka murugaysan tahay? Dadka adduunka u badan waa dad aan wax haysan. Qaar waxay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii. Qof ayaa warkaa sheegaya ayaa la murugoonaysaa miyaa? Qaar baa xorriyadoodii waayay oo xabsiyada dhex jiifa. Ma qof aad jeclayd ayaa kaa tagtay oo la murugoonaysaa? Ma ogtahay in 7 bilyan oo qof ay adduunkan ku nool yihiin? Haddaba sida Nabi Ayuub oo kale gacmahaaga kor u taago oo waxaad dhahdaa, Ilaahayow iga qaad dhibaatada, adiga ayaa arrintan awoodo.